hogaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe ayaa wada qorshe dowladda Soomaaliya mudooyinkii u dambeeyay ee waday kaas oo ahaa in lagu soo gacan geliyo deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Dhexe sida aan xogto ku ogaanay Axmed Maxamed Islaam Madoobe hogaamiyaha Jubbaland ayaa la sheegay in maalmihii la soo dhaafay uu waday qorshe la doonayo in gacanta maamulka Jubbaland lagu soo geliyo magaalooyin waaweyn oo ka tirsan gobolka Jubbada Dhexe markaas oo la sheegay in go'aankan ay hore u qaadatay dowladda dhexe ee Soomaaliya balse isaga uu doonayo in uu kaga hormaro magaalooyinka diiradda u saaran inay dowladda qabato waa caasimadda gobolka Jubbada Dhexe sidoo kalena ah caasimadda rasmiga ah ee Jubbaland waa degmada Bu'aale oo Jubbada Dhexe ka tirsan iyo magaalada Jilib oo ah xarunta ugu weyn ee kooxda shabaab dowladda Soomaaliya ayaa qorsheysay mudooyinkii u dambeeyay qabashada magaalooyinkan waxaana ay kala kaashanaysay saaxiibadeeda ugu dhow oo ah Turkiga kuwaas oo iyaguna damaanad u siiyay inay gacan weyn ay ka geysanayaan qabashada labadan magaalo markii uu ka war helay xogta arintan hogaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe ayaa dadaal dheer u fuulay qabashada magaalada Jilib oo 90 kiiloomitir isbitaalka Amora Specialist waxa uu dalka keenay qalab casri ah oo adigoo aan qalin lagu marsiin ama dawo lagu siin ayaa laga daaweynayaa hameeyirida ragga waxaan xaadir kugu ah isbitaalka dhaqaatiir PhD sidata oo 20 sano wax ka badan ka shaqeynayay cilmiga cudurrada ragga u jirta magaalada Kismaayo oo ah xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Jubbaland saraakiil Amerikaan ah oo isbuucan gudihiisa ku laalaabaneysay magaalada Kismaayo ayaa la sheegay in Axmed Madoobe uu kala kaashtaday arintan iyagana waxaa la tilmaamay in ballanqaad buuxday u siiyeen sidii magaalooyinkan gacanta maamulka Jubbaland loo soo gali lahaa qorshahan ayaa la sheegay in Axmed Madoobe taageero weyn uu kaga helayo saraakiisha Africom kuwaas oo la sheegay inay Axmed Madoobe ay ka ballanqaadeen qabashada Jilib iyo Bu'aale taas oo Axmed Madoobe uu rabo inuu kaga hormaro qorshaha dowladda ee labadan magaalo ay ku doonaysay inay ku qabato wixii warar ah ay soo kordha halkan aad kala socon doontaan haddii ay beedmo